بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمت وسنتكم كتبتم كتبتم ayada jana kale leejinayna gabadha maanta oo baahan jinada ilaahay meel nagu kala reebo ilaahay jinada nagu deeqo dhamaantiin asxaabta qaaliga ah ee jankiga aad iyo aad baan mahadsantahay meel kasta taafaatin ku joogtaan maanta waxay tahay daba clip yaro sheekayro gaaban oo qosol ay wada sheekadaas waxa oran sidan nin ayaa gabadha qalgalay habeenkiisa qalgalka ayaa wuxuu soo galay qofkii waxa uu arkay miiskii oo saddex koofi saaran yihiin koofiyadaas garan sadeha koox xagan lagu xidhay madax meel ka sare soo qaata madax jidka koofiyadii madaxa lagu xidhay miiska saaran buu arkay marwadiisi qaaliga ahayd habeenka la qalgalay weydiiyay wuxuu ku yiri marw waxay koofiyadahan saddex koofiyad miiska saaran waxay ku tiri koofiyada koobaad arkayso waxay tiri saygii koobaad ninkii koobaad macnow ayaa ka dhintay ilaahay naxariiste gacanka xaq daraayaa shibitay koofiyada labaad arkaysana ninkii labaad ba ka dhintay batri isagana shil baa uu ku dhintay ilaahay naxariisto koofiyada saddexaadna waxay koofiyada saddexaad arkaysana waxay ninkii saddexaad ayaa ka dhintay isagana xanuun darteed ayaa u dhintay saddexda ay sheegtay saddex ninka ay ku walaaloy koofiyadiisii madaxa saaran ayuu soo bixiyay waxa uu agdhigay koofiyadii kale wuxuu ku walaaloy koofiyadan afraad waxaad ku tiraahdaa mar hadaa lagu weydiiyo weli waa maxay koofiyadan afraad hadaa lagu raahdo waxaad ku tiraahdaa weli koofiyadan afraadna waxaa nin lafiisa ninkayga afraad ee lafiisa uga cararay waad qosli doontaan malaa dhammaan ninkayga afraad baa lafiisa uga cararay ku dhaweeyay dadka marka ninkaas halkaas uu cagaha wax ka diyay ama uu cararay marka intaasna waa kilibkayga yara qosolka ah dhammaantiin waan salaamaya marka channelka iyo subscribe iyo waxba intaba shaydaankana cad billahi min shaytaani rajiim kaga dhiga oo aan salaamayo dhammaantiin marka sidoo kale